waxa aan jecelahay in aan wax ka weydiiyo arinta Somaliland waxa jirta waxa la yiraahdaa Maxamed Faarax Aydiid waxa uu loo ogolaa SNM in ay goodo oo waqooyiga Soomaaliya ay goodo wax xiriirihii adiga iyo SNM maxay naga dhaxay arintana maxaad ku oran lahayd walaal dad umada waqooyi degan waa umad Soomaaliyeed iyagoo Soomaaliya oo gumaysi gacanta ugu jiray ayay 26 Juun 1960 xornimo qaateen ayay ahaayeen kuwii midnimada koonfuriya waqooyi isku keenay dad waxa weeye jecel midnimada iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed danaha ummadda Soomaaliyeed waxa ka keenay in ay ka baxaan ku dhawaaqaan goosasho waa dhibkii loo geystay waxaana dhibkaas u geystay talisyadii soo xukumi jiray dalka 60kii markii xornimada la qaatay intii ka dambeysay cadaalad darro ayay tirsanayaan way ku dhacday waliba ma tirsanayaan mid cad baa ku dhacday burbur baa loo geystay naf iyo hantiba niyadoodii baa la burburiyay maantay marka ma taalo hadalku waa goosanahayaan iyo ma goosanahayaan waxay hadalku taalaa sidii loo daweyn lahaa dadkaas oo cadaalad loogu heli lahaa waxaan aaminsanahay cadaaladdaas haddii ay helaan lana tixgeliyo ma garanaysaa cadaaladda ay doonayaan oo loo guntado sidii loola hadli lahaa wada hadallo loola furi lahaa oo dood loo furi lahaa oo markaas dooddaa ka bacdi waxaan qabaa in la gaarahayo yacni xal inta arrinta in laga gaarahayo ma qabo in la borokaareeyo ama la daandaansado ama xumaan loola tago ama dagaal loola tago waxaan qabaa in arrintaas si qabow si wanaagsan oo sharaf leh si ma garanaysaa aqliya loola sheekaysto loola doodo loola maaragtay haddii ilaahay ku roon yahay la isku aqli celiyo ma garatay